markaas waxa Yeruusaalem ciise uga yimid niman farisiin iyo culimo ah oo waxay ku yidhaahdeen dadtaadu maxay xeerka waayeelada uga gudbaan waayo ma farxashaan goortay jidis cunayaan wuu u jawaabay oo ku yidhi idinkuba maxaad amarkii ilaah uga gudubtaan xeerkiina aawadiis waayo ilaah wuxuu amray aabbaha iyo hooyada maamuus oo kan aabbihii ama hooyadii caayaa dhimasho ha ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin kan aabbihii ama hooyadii ku yidhaahda wixii aan idin tari lahaa hadyad baan ilaah ugu bixiyey aabbihii ama hooyadii maamuusi maayo xeerkiina ayaad erigii ilaah ku burisay labawajiilayaalow Matayos aad buu wax idinka sii sheegay markuu yidhi dadkanu bishimahooda ayay igu maamuusaan laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay si aan micno lahayn ayay ii caabudaan iyagoo dadka wax ku baraya amarada dadka markaasuu dadkii badnaa u yeedhay oo ku yidhi maqla oo garta ma aha waxa afka gala waxa ninka nijaaseeya laakiin waxa afka ka soo baxa kaas ayaa ninka nijaaseeya markaasaa xertii u timid oo ku tidhi ma ogtahay farisiintii inay ka xumaadeen markay hadalkii maqleen laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi geed walba oo aan aabbahayga jannada ku jiraa abuurin waa la rujin doonaa iska daaya iyagu waa indhoolayaal hagayaye laakiin nin indhala hadduu nin indhala hago labadooduba god bay ku dhici doonaan markaasaa butros u jawaabay oo ku yidhi masalkaa noo caddee kolkaasuu wuxuu yidhi idinku weli ma garasho la'aan baad tihiin miyaydan garanaynin wax kastoo afka galaa calooshay tagaan oo waxa lagu tuuraa meesha laga baxroodo laakiin waxa afka ka soo baxa qalbigii ka yimaadaan oo kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya waayo waxaa qalbigii ka soo baxa fikradda sharka leh iyo diridda iyo sinada iyo galmada xaaraanta ah iyo tuuganimada iyo maragga beenta ah iyo cayda kuwaan weeye waxa ninka nijaaseeya laakiin in laga cuno fara aan la meydhin ninka ma nijaasayso